dhalinyarada gobolka Hawl inay sababsho inay dhaliila inay nala xisaabtamaan inay kama qadiye ka jooga ee u adeegaya ummadda sheegaan annaga diyaar waxaan diyaar u nahay in aan taabsiisaan wax kasta oo naga leexsan ayaan diyaar u nahay ee xaqiina ka baynayn taas oo qodobka labaad halkan waxa weeye hooyadii halkan gawaarun gudoomiyaha ku-xigeenka ku sheegay waxaan sheegayaa idinku daraya intiina ay hor fadhidaabaan inaad tihiin dhallinyaradii halkan ku dhalatay dhallinyarada halkan ku dhalatay waxaan u sheegayaa madaxweyne muuse biixi cabdi waa mujaahidiintii aynu garanaynay ee shiiday dhasho kuway nala hadlayaa maanta waxaan rajaynayaa in baaqa aa u dirtaan xukuumadda jawaab degdega ah ka heli doontaan haddii aan la yidhahdo waxaan idiin hayaa laba fariimood oo aad idinka farxin doonaa labadaa fariimood anaa idiin hayaa waxaanan doonayaa hargeysa markaan tago in labada dhallinyarada ugu fircoon inaa ii soo dirtaan oo aan soo guddoonsiiyo labada xafiis ee Soomaaliya iyo xafiiska UFO oo ah labada xafiis oo loo soo qaaday labada xafiis gobolka laga furayaa labadii xafiis ba halkaa ka furanayseen iyo halkaa u diyaarinayseen diyaariya labada inanay hawsha aan soo guddoonsiin doono labada xafiiskii doonana ama maanta ay raaciya ama ay dabarkeed waxqabadka gobolka caafimaadka markaan anigu mas-uulka ahay waxaan idhi caafimaadku isaga oo meel hoose jooga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaan joogay ama nasiib ha ahaato ama karti ha ahaato ilaahay wuxuu horeeyey tallaabooyin muhiima oo cisbitaalkii gobolka Hawl oo tiyaatarkii qaliinka uu dhanyahay oo bangigii dhiig u dhanyahay oo dib u habeen ballaadhan ku sameeyo afar waa dhabaynu maanta joognaa waxaa kaloo aan wax ka qabanay degmada Sayla iyo degmada Balle Cabane weli lama furin hawshii laga qabtay iminka furitaankiisii xaflad loo qaban doonaa Saylana waxaan ugu tagnay hal qol oo caafimaadkiisa u ka dhisay maanta wax ka dhisan 7 qol isagoo hadda ku saartay maanta reemseed inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu wixii aynu dhallinyaradii jiilka soo socda ee badaalkeeda annaga bedelaysa baatiin waxaa loo baahan yahay arrin iyo adduun iyo caqli iyo fikrad waxaa ku darsanaysaan halkan horumar ka socda inaad timaadaan wixii mashaariica ee naga maqan waxa weeye inagoo madaxdeennii wasiiradeennii ay joogaan qaranka joogaan Hargeysa u marayna haddii ay wixii naga maqayeen iyageenu weydiin wixii inooga yimaadaa waa halkeeda wixii kalena waxa weeye sidaa fadhiga aynu uga kacnay aynu isku tashanayno ayaynu ku qabsanaynaa xukuumad iyo hay-ad iyo bini'aadam kaleba waxay ku soo eegayaan markaad adigu dad noqotay wax qabsato ayaa xaluun ku daray cid walba anaa ballan qaaday inay halkaa nooga marayso haddaynu sidaa ku socdo marka waxaan anigoo waqtigii soo gaabinaya in aynu isku tashano ayaan hadda kaga baxayaa asalaamu calaykum iyadaa wax qabataa iyadaa wax kasta oo horumar oo gobolku leeyahay qaban kartaa dhalinyarada hadday maanta isku tashatay oo gacmaha isqabsadeen waxaan leeyahay hambaliyaan leeyahay dhalinyarada miisaaniyadda qaranka 2019 wada socda anigaa soo qaaday koobiya kusoo sameeyey waa noo keenay taa hore waxba rumaynaadahay sabaxa
waxa dhacday waxa annaga iyo barisaab xigeenka iyo dhowr qof oo kale wasaarad walba oo inaga qaybteedu leedahay waa tagnay buugga miisaaniyadda qaranka saa soo horreeyay wasiir walba oo horreeyay finaantiis baan doonaynaa kusma si uu ogaado inaanu hayno xogta meesha ku taala waxa dhacday ومر بعد يوم الحد وطبع السنة إن إذا أنا عاجز مرة وصوت قبتها وقبلها مرة لا بعشرة بس عشرة ولا ولا أفريسانين تورد السمسان الأول قاعدين أيوة توقل لي قبل بيننا وإيه توقلنا أول مستقبل توقلنا وإن قلت الكلام يقعدنا وحي لك بسنة وإن لك بسنة سمعنا وحي لك بعدها وإن لك بسنة حطينا لك كيس فردنا بسنة وإن حتى سمعنا نتهنا بعضنا هذا مثلا سمعنا ذلك غير مدينين حوالي صدرنا هذا نسي سمعنا أربعة كبران لين وكبران لين وكسران لين وكوحان لين من رجع لين أنت ولا لين ما لين مراوي وحوالي هذا وحدنا قدنا وحدنا يسدوا ترى ينبيع وهذا بالحوالي نقول عد بينهم ترسبوا بعد بينهم ترسبوا الحوالي وتلتوا السرير ولا أنا أقول على واحد قرأت معين وتوصلنا وين من جبتوا السرير وين والسرير وين بدور من الحوالي وحبها هي مش متراجع يوقع بس وحي الدولة عيوتنا أبا أمو استيقان نقطة أمو مدحوين حان نقطة وحي عيو الطوامين عدوين الدين لكن هذا فرق تعالى دقائق dadku haddii uu dhismo oo waxbarashadu ay kor u kacdo oo ay dhalinyaradu ay todobor iyo horumar sameeyaan aad iyo aad ummaddaasi ay horumarto waxa weeye ta kale ee ku daraya waxa weeye anagu maamulkii gobolka haddaan nahay diyaar baan u nahay in la saxo in la dhaliilo in aad wax noo sheegtaan diyaar baan u nahay waxa kaloo diyaar u nahay inaynu habeen iyo maalin gobolka iyagu shaqayno oo aanu haddii إلى الله أنت أود يدها يا بعض الله إذا كلام يقول يتكلمون وعلى يتكلمون إن تذكرت شوك ستان إن فكر كون عيسان أنكم برسالة إن أتلنا بلا أن يقولك شوك ستان وعوي بلاد وعلى من كلام سررتي ولي نور كررتي أورجينا يوم قالوا والله يقانا لكن ساعتان كاي قدرك أوروسو والبرشلة وحوالديسو وبدليرة أتحكشو ووحي باهية دليرة متهيئة دوراتو وحوالي كل يفتح بدن يعني كاغر سونا بدلسة وحوالي باهية هرد سيدي لهي ومطلق علي إنت أبوية بترتو باهية لو جريسة وحوالي دليشنا ويجريسة إن الله يسأله يسأسحانا ديال بلوية مدحتي نبغى فريسة إنه في دليل أنه سوق الإنسان أنه قال أنه ونبتدي مالتي أشهد أن قبل أبي إلا ما سيدا قبلك يعني يهوليسة يعني كل رما يوحسا قبته ويمسوكه إن يوم تأسيجته أيام نحن نفتح عليها وحلا